السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkaa naga daawanaysid waa Xuseen Afgoyani channel. maanta maxaan wadaa xuseen oo mar la arkaayo maraan la arkaynin, mar wax soo gelinaa maraan wax soo gelinaynin, mashquulka haya awgiisa. maanta ilaahay wuxuu ii saamaxay inaan video soo duubo aan idinla wadaago mawduuca markaas aan rabo inaan ka hadlo. maanta waxaan ka hadlaynaa mawduuc dadka badan ay indhaha ka daboosheen, aysan ka hadlin, laakiin ay tahay dhibaato taagan ka jirto social mediaha. saan wada aragno ayna tahay dhibaato qoys ama familiariga ama familka. sida ilaahay subxaanahu watacaala uu yiri, calaashaan guurka ama lamaananimada waxaa ka dhalata mawado iyo maxabo iyo kala gaceel, laakiinse maalmahan dambe waxay noqdeen cagsi. guurkii wuxuu noqday guur daneyste, guur laisku dhibaateeyo, guur aan loo gelin cibaado ilaahay subxaanahu watacaala iyo raaligelintiisa iyo daacad lagu adeecayo nabillaahi maxamed calayhi salaam ama nabigeena suuban salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi. arrintaani waxay ahayd in ay ka hadlaan dadka ilaahay subxaanahu watacaala caqliga siiyey, garaadka siiyey, cilmiga siiyey. waa dhibaato taagan kana dhexeysa ragga iyo dumarka, khaasatan lagu dhibaateeyo hooyooyinka Soomaaliyeed. arrinta aan raba inaan ka hadlo waa arrin aad iyo aad u murugo badan. arrintaasoo ah ilmahan yaryarka ah laga qaato hooyadooda. waalidka mas-uuliyadda labadoodaba way ka saaran tahay barbaarinta ubadka ama ilaalinta ubadka. awlaada ma ahan xoolo oo qofka uu lahaan karo, ma ahan wax suuq laga iibsan karo. awlaada ma ahan wax adiga aad samaysan kartid. awlaadu waa hadiyo rabbaani ah ka imaatay samada sare. taalamaa dad badan maanta ay isguursadaan, sanooyin isqabaan, aanna waxna wada dhalin biqudrati ljabbaar. dadna way isguursadaan sanadka hore oo guurkooda ayuu ilaahay owlaad ku beeraa. ilaahay subxaanahu watacaala adiga kuuma siinin owlaada ina adiga uu ku jecel yahay, kuuma siinin ee uma diidin midka aan la siininna inuu neceb yahay. taas micnaheeda waxay tahay ilaahay adiga wuxuu kuu siiyey owlaadan inuu kugu imtixaano. kan loo diidayna waxaa looga diiday in lagu imtixaano. ilaahay qofka curyaanka uma weynin lubo uu ku socdo, kan indhoolaa uma weynin indho uu wax ku arko. laakiinse wax walbo waxay ku socdaan imtixaan. liyabluwakum ayukum axsanu camala. leanna ilaahay markuu ka hadlayay geerida iyo nolosha waxa loo keenay waxay ahayd in laisku imtixaano, in qof walbo la ogaado sida uu ula dhaqmayo calaashaan ama lagu imtixaano. maanta hooyada laga qaatay ilmaheeda, ilaahay subxaanahu watacaala wuu awooday ninka qaatay inuu kasoo qaado uu ku celiyo, laakiinse ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu rabaa hooyadaasi inuu imtixaano.
kulligiina waa wada aragteen social media ay ka buuxaan hooyooyin yar yar ada yara qurux badan maasha Allah oo ilmahoodii laga qaatay diif iyo dhareer isku daraayo ragii ka qaatayna ay daawanayaan ragii ka qaatayna kilibyadaasi daawanayaan aysan u naxaynin naxariis soo gelinin yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis samaa leena naxariista maanta cunugaaga hadaa ka qaadatay hooyadiisi asoo xuquuq badan hooyada ay ka saaran tahay inay gudatana diyaar u tahay aa ka qaaday cunugaasi baritoole ilaahay maxaad kaaga hortagi doontaa ilaahay subxaanahu wa tacaala maxaad uga jawaabi doontaa ilaahay markuu ku dhaho su-aasha waxay u dhacaysaa ilaahay hadduu ku dhaho adiga aabbaha ah oo cunuga qaatay cunugan aniga waxaan faray hooyadiisa inay 2 sanadood inay naaska nuujiso adiga oo aan ku siiyay cunugan oo aabba ilaahay aniga aan kaaga dhigay uu ku dhaho maxaad uga qaadatay maxaad ka jawaabi doontaa ilaahay hooyadii way u xumaysay ma dhihi doontaa ilaahay hooyadii bigas naceeb aan u qabaan uga qaata ma dhihi doontaa maalintaas hooyada naceebkeeda iyo jaceelkeeda wuxuu ku soo kordhinayaa malahan maalintaas cunugaas jaceelkiis wuxuu ku soo kordhinayaa malahan aabayaasha waxaa la hadlaa yungarka ah ama yaryarka ah okay aabayaasha da-da yar ayaan la hadlayaa cunugan ilaaha ku siiyey aaban ilaah uu kaaga dhigay hooyadan yar aa ka qaadatay ilmaheedana ogow hooyo markii laga hadlayay inay kaa qiimo badan tahay rasuulka wuu sheegay markii hooyo 3 jeer la sheegay aa adiga lagu sheegay hooyo qof gaari kara ma lahan hooyo وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف هايو أم والد مركا لغا هدلاي إلهي سبحانه وتعالى وحوقي مرتبة اللوات عبادة مركا في رسد إلهي مركودا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه كدب وحكا لمشيقين إلهي وحوشيق وبالوالدين إحسانا hooyadan youtube-ka social media facebooka tiktok-ga meel walba ka qaylinayso qofay danqiso malahan miya gabdhahan yaryarka ilmaha laga qaatay cunugan sanadka jira sanadka ka yar sanadkii bilaha jira aabaha qaatay intuu geen doona waxaad u geenaysaa hooyadaada adiga kusoo korisay kusoo kabisay nin weyn maanta cunug dhalay kaa dhigtay inaa maanta ku kaliftid cunug hooyadiisa nooshahay 6 lixaad qabto 5 jini ka fiyowdahay inaa hooyadaada ku kaliftid maxaa kugu qasbay maxaa hooyadan masaakiinta ah oo hooyadaada oo kala ah walaashaada oo kala ah gabadhaada oo kala ah aad ugu qasbaysaa inay youtube ama social media soo gasho ay meesha ku calaacasho ay ku qayliso ku oyso fattaqu dhulma فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ظلمك حلقة جوجو خاصة آباء يريركا ظلمك كجوجو قبل بدن أيوتوك كجو نمن كقاتين وان نمن يريرا تأير جوجان سوشيال ميديا قيبكا عنوكي واد قادي هو يدي ربتي ku in qowbsanaysay rabtay xuquuqdiis inay gudato waad ka qaaday okay adiga ma haysatid adiga naas ma siinaysid adiga habeenkii ulama soo jeedaysid adiga xarkiisi kaadiis ma dhaqaysid adiga cunto ma siinaysid caafimaadkiisa ma fikiraysid waxaad u geysay walaashaada waxaad u geysay naag aad qabtid waxaad u geysay hooyadaada walaashaada laga yaabo inay reer leedahay ay ilmo leedahay ilmaheeda ay ku filan tahay aysan mas'uuliyad kala qaadi karin hooyadaada laga yaabo inay duq tahay ay nolosheedaba ay xakameen laadahay ay because meelaha qaar ay caawinaad ugu baahan tahay
aa ku qasabta ilmahaaga inay hayso. waa qasab, ma ahan raalinimo, waa qasab. cunugan hooyadaad u geysay ama gabadhan hooyadada u geysay way yar tahay, iyadaa mas-uuliyad dheeraata u baahan. iyadaa u baahan in la koriyo, la kabiyo, la ilaaliyo, meeshii gacmaha dhigaysa, meeshii lugaha dhigaysa la ogaado. hooyadaadan sidoo kale iyadaa u baahan in la caawiyo. lianna waalidka ti ilaah markuu ka hadlaayo waa waalidiinta hadday weynaadaan agtaada ay ku barbaaraan, ay ku duqoobaan, waxaa lagaaga rabo waxay tahay inaad u naxariis fashid. waqfid lahumaa janaaxa dulli min alraxma waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaanii sagiira. cunugan hadda adiga aad dayacaysid beri goormuu ku dhihi doonaa waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaanii sagiira? goormuu ku dhihi doonaa? may kuma dhahayada. waayo usan kuu dheheynin. cunugan waxaa ka qaaday naxariistii hooyo. hooyada way ka naxariis badan tahay aabbaha. adiga subaxdii waad baxaysaa, shaqa aadaysaa. cunugan meeshuu ku xaaray, meeshuu ku kaadiyey, meeshuu ku jirtay, meeshuu ku xanuunsaday, meeshuu ku cunteeyey, meeshuu ku baahday ma ogid. waad imaanaysaa asoo fiyow, caafimaad qabo, labisan, qurux badan. albaabku markaa kasoo geshid waad dhunkanaysaa. yaa nadiifiyey ma ogid, hooyaa nadiifisa. laakiin kan hooyadiisi aa ka qaaday yaa kuu nadiifin doono. asoo diifkiisi wixiisa socduu kuugu hor imaan. bilaahi calaykum aabbayaalka yaryarkaa ilaahay ka cabsada. hooyooyinkan ilmahooda aad ka qaadateen bilaahi calaykum ilmahooda ku celiya. xitaa haddaadan awoodin inaad biishid, ilaan waxaa ka ordaysaa ogay waa biile, u sheeg kuuma biilaayo ku dheh. iyada u shaqaysanayso. fa kam hooyo oo aabbayaalka ka dhinteen maanta ilmahooda u shaqaystaan, xamaashaan, ilmahoodana korsadaan. cunuga ay soo korisay hooyadiisii iyo cunuga ay soo korisay eedo isku mid ma ahan. xitaa adiga haddaad dhihi laheyd anaa meel u fariisana, anaa korsana, anaa u qabeena, anaa u dhaqdhaqa, anaa u nadiifina, anaa cunto siina, anaa dugsiga geenaya kasoo celinayo, haddaad dhihi laheyd xitaa way ficnaan laheyd. laakiin adiga ma sameynaysid. cunug yaraataa oo ku oga, baatiyaa bursataa, xaas kala raadisaa. ilaan maadaama hooyadii wiilkaaga a kala tagteen, hooyo kala raadinaysaa. okay, uma fariisanaysid. cunugiisu madaxa derbiga ugu dhufanayo beritoole wuxuu noqonayaa derbi jiif. dembiga sababta dhanna adaa iska leh, aabbaha dhalay. horaa waxaa maqli jiray waalid aan caasina wiil ma caasiyo. baruu aabaa'akum tabaruu abnaa'akum, sida rasuulku uu yidhi. waani ma dhihi. adiga aabbaha ah haddaa ilmahaaga uga cabsan weysid baarinimada, ayaga kuuma baarifalayaan. haddii adiga waalidiintaad baar aadan usoo ahayn, waa ilmahaaga baari kuuma noqonayaan. xaaskan shalay adaa guursaday. caalamkan dhan gabdhaha Soomaaliyeed adaa kala soo dhexbaxay. adaa aabeed iyo hooyadad ka doontay, guursaday, si sharci ah ku guursaday. ilaahay awlaaduu ku siiyey. cunugay ku dhashay gabar iyo wiil. oo yuzawijuhum dukraana wa inaatha wayajcalu man yashaau caqiima. ilaahay wiiluu ku siiyey ama gabaruu ku siiyey. ilmihii sanad gaarin aa hooyadii isku dhacdeen, ma xaqaa u leedahay cunuga inaa qaadatid? xaquma lihid. diiniyan xaquma lihid marka la fiiriyo. laakiin dhaqankeena xun oo soomaalinimada, dhaqanka xun aan dhaha, dhaqan fiican ma ahan. dhaqankeena xun ee soomaalinimada aad sababayo hooyo iyo cunugeeda inay kala dheeraadaan. hooyo xitaa islaamkeena suuban wuxuu qabaa xaaska marka la furo ilaa ay kaga dhammaanaysa ciddadeeda inay gurigeeda joogto. laakiin anaga ma sameyno. marka furiinkaba uu dhaco ilbiriqsi ma joogayso, way dharkeeda inay aruursataa, guriga ka tagtaa.
ilmaha idinka dhaxeeya islaamkeena wuxuu qabaa cunuga inta naas nuug uu yahay inay hooyada leedahay, adigana lagu faray arsaaqtiisa inaad bixisid, bilkiisa inaad bixisid. ilaahay markuu ka hadlaya الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض iyo وبما أنفقوا من أموالهم ay ahayd nafaqadii aday waajib kugu tahay. adiga ninka naagta guursaday isnimeeyey, naagtii ilaahay wax ka siiyey, adaa lagaa raba bro. ma ahan cunugaas inaa qaadatid, xitaa haddaadan awoodin ilaahay kugu og yahay waad dhihi kartaa walaalo aniga wax ma haayo, cunugiin xaqu u leeyahay inaad siisid. okay see wax la yeela ani adigna isfahmayno waa kala tegi rabnaa, xalafkeena wuu dhamaaday. okay markaas xala imaanayo. laakiin se ma lagu furaa ha ilmahaaga dhiibe cunugii sanadka aan gaarin oo naas nuujintii xaqa u lahaay, xuquuqdii hooyada uu ku lahaay rabo, ama hooyadii rabtay inay gudato, waxaa tiri madaxaaga miya ahaa, madaxaaga wuxuu ku xiran yahay cunugaaga. maya waan ku furi madax cilmihiina waad isiina. billaahi calaykum, billaahi calaykum, ittaqu llaha, ittaqu llaha. dhalinyarnimiyay ku qaadin. okay ilaahay markuu dhahay walwaalidaatu, hooyooyinka laga hadlaya, aab lagama hadlayni, yurdicna awlaadahunna xawlayni kaamilayn, 2 sanadood, 2 sano 24 bilood cunugaasi wuxuu xaq u leeyahay inay nuujiso hooyada. anaga hadda xilligiyadii hore waxaa jiri jirtay in hooyadii aan ilmihii iida nuujinin loo geeyo hooyo kale, xitaa haddaa hooyadeeda ka qaadatay yaa ku nuujinaya ii sheeg. leanna caafimaadka marka laga hadlayo, dadka qolada caafimaadka waxay sheegeen in naaska hooyada uu yahay wax walbo, cudur walba waxa ka hortagay inuu yahay naaska. cunugaan hooyadiisa naas siinin, sidaan wada aragnay, jiro kama dhamaato, ilaan difaaci dhanaa ka maqan. okay marka waxaan dhihi lahay ilmahan aad ka qaadanaysiin hooyadooda, ilaahay kaga cabsada oo ka jooga. ilaahay kaga cabsada oo ka jooga. xitaa cunugii adiga mahaysanaysid, qof kalead u geenaysaa. hooyadeedii ama hooyadii cunuga dhashay xitaa hadday u baahato inay aragto, uma ogolid. uma ogolid sabir xitaa inaa kaga soo dirtid oo cunugeeda sabir uga soo qaadid. uma ogolid inayna kulanto. ma gumaysiya? ma cunugii ay dhashay may dembi ku mudatay? way a uga xaaraantimaynaysaa. ilaahay ba xaaraan ugama dhigan jirkeedu ka soo bixiyey. adiga oo bini aadam bashar caadi ah, way sabab baa cunugeeda xaaraam uga dhigtay. kam hooyo, kam meeqa hooyo aad dhibaatadaas ay haysataa? meeqo aan social media ku aragnaa? meeqo way a ugu qasbaysaa? adiga aabba haddii maanta ku dhihi lahayd cunugaaga ma arkaysid, maxaad samayn lahayd? cirkaasoo dumin lahayd aan fila. maba kartide, maba awoodide. haddaa awoodi lahayd cirkaasoo dumin lahayd. okay war ilaaha laga cabsado, billaahi calaykum, ilaaha laga cabsado. cabsidii way naga guurtay. ilmaheena maxay caasi u noqonayaan aan mar walba la taaganahay, culimmadii aan ku wareerinaa. laakiin ilmaha waxay caasi ku noqonayaan waa noocan oo kale. cunug hooyadiisa laga fogeeyey, cunugaan hooyadiisa la tusin. war cunugaan hooyadan uu fasax ilaa 2 sano, 3 sano, 4 sano inay soo haysato kubiil. beri 4 sano 3 sano markuu gaaro,
okay dheh cunugii igu soo wareeji dhib ma lahan ama xitaa dheh weekendigi ilmihii ina aragtaa rabtaa weekendigi isii dheh haddaa Soomaali joogtid khamiis iyo jimco haddaa Yurubtan kala joogtidna sabti iyo axad okay haddii Yurubtan aan joogno waa lagu dhaqmaa okay haddii cunuga adigii hooyada isku fahmi weysaan hay-ad kale idin soo dhexgelayso dowladda ka socota okay qasab hooyaday ku leedahay qasab hadda maanta cunuga haddii Yurub cunug aa ku dhashid adiga aabbaha waxaa taa ma lahan laa walaata mas-uuliyadda cunuga waxay saaran tahay hooyada ilaa hooyaday kugu dhahdo mas-uuliyadda aabbaha wuu ila leeyahay 50-50 okay hadda Jarmalka anaga aan joogno cunuga markaa dhashid waxay ku leeyihiin automatically xanaanada cunuga waxaa qaadanaysa hooyada mas-uuliyadda cunuga waxaa qaadanaysa hooyada adiga waxaa taama okay ilaa ka samaysid warqad loo yaqaano soo gaqeest waa warqada xanaanada sharciga lagu siinayo markaas adiga sharciyadii mas-uuliyadda cunuga aad qaadaysaa okay maanta haddaa adii hooyada aa kala tagtiin automatically cunuga hooyada u qaadanayso haddii hooyada soo istaagto cunugii anaa haysanayo ma tusaay laguma tusaayo laakiin falilahi alxamd hooyooyinkeena qaar ee Soomaaliyeed way naxariis badan yihiin laakiin anaga ka aabba ahaan dulliyaalanahay dulli waxaana duleynayana waa niman yar yar ah wax ma garata riyaahe ilaahay kaga cabso waxaad samaynaysid ilaahay kaga cabso okay hooyooyinka waxaad ku samaynaysid ilaahay kaga cabso hadda maalin sheeka waxaa maqlay gabar ilmeedii laga qaatay waa gabar yar at least 20 ma gaarin cidiyaa fariisteen aabeed wuu dhintay adeerkii iyo cidiyaa fariisteen oo wiilka ka soo jeeday waxaa la yiri wiilkii wuxuu rabaa cunugkiisa inuu qaato waa cunug sanad ka yar war bilaa calaykum ma dhigi kartiino cunugan wuu yar yahay lama siinayo aabba cunugan wuxuu xaq u leeyahay hooyadiisna inaad siiso lama dhihin hooyadii waxaa la yiri kan cunug sabab cidiisa rabtada adigayaata ilaan dhaqankiya wuxuu noqday hooyadii ilmaha dhashay wax ma baahanba waxaan maqli jiray hadal la dhahayo hooyada waa weel wax lagu shubtay ma ahan weel wax lagu shubtay ma ahan hooyada dhiga adiga aa ka leedahay cunugaasi dhigiisay ku leedahay biduuni hooyo ilmo ma jiraan biduuni aaban ilmo ma jiraan hooyada aaba la-aan wax ma dhasho aabahan hooyo la-aan wax ma dhalo sidee ku noqotay marka hooyada weel wax lagu shubtay haddii weel wax lagu shubtay tahay adiga weel guriga wuu yaalaa dee soo qaadee biyahaaga ku shub ha kuu dhashaan la cunuga wuxuu ku dhashaa biyaha ragga biyaha hooyada isku tageen haddii hooyada aysan biyo lahayn okay hadda marka la dhahayo dadka aan wax dhalin markay dhaqtar tagaan hooyada cilada qabtaa markii la dhahayo aabaha asiga kaligiis wuxuu u dhali waayay ma jirto because sida psychological ahaan biology-ga marka la baranayo waxaa la dhahaa ilmaha wuxuu ku sameysmaa isdhexgalka hooyada biyaheeda biyaha aabaha xitaa waxay leeyihiin haddii raximka hooyada ay ka hormaraan ay ku dhacaan biyaha hooyada cunugaas wuxuu u ekaanaa abtiyaalkiis ama hooyadiis dhinaceeda haddii biyaha aabbaha ay ka hormaraan raximka ku dhicitaankiisana familka aabbuhu u ekaanaa ama aabihiis haddaa marka weel wax lagu shubtay say ku noqotay ma run in laisku sheegaa la rabaade okay in run la isku sheegaa la rabaa af Soomaali ahaan lama rabo meeshaan dullinimada aa ku heysiin hooyooyinka joojiya ragiina ka jooga hooyada waa udub dhaxaadka reerka hadda adiga aaminsan tahay inay tahay weel wax lagu shubtay bro weel guriga wuu yaala ku shubo kiimikan ku darso haddii wax kuu dhalaysa aan aragnay ma dhalayso okay dhalitaanka ilaaha iskale marka koowaad
sababtane waxaa iskale hooyo iyo aabba inay isku tagaan. Okay, ilmahan diinta maxay ka qabtaa in hooyada laga qaato? aniga culimo miyi, laakiin intaan ka arkay cilmiga, diinta waxay qabtaa cunuga in hooyadiisi uu la joogo inta uu ku aqliyeysanayo, uu asiga kala dooran karo hooyaan rabaa mise aabaan rabaa. laakiin diinteena ma qabto cunuga intuu yaryahay in hooyada laga qaato. diinteena wax walba xuquuqdooda way ilaalisay. xaaska xuquuqdeeda waa la ilaaliyay, adiga xuquuqdaada waa la ilaaliyay, cunuga dhalan doona xuquuqiisa waa la ilaaliyay. okay, wax walbo ilaahay subxaanahu watacaala ma faradnaa fi lkitaab yuu yidhi. wax kutubkan jaamaca ah ama qur-aanka looga tega ma jirto. wax walbo way ku qoran yihiin. war adig ilmo iyo xaasa sheegusa naagtaasa ugu galmoonayda laguu sheegay, maxaa kale kuu dhiman? okay, adigii naagtaada sariirta waxaa ku qaban laheedana laguu sheegay. marka billah calaykum walaalahayga soomaaliga ah, khaasatan dadka aabbayaalka ah, waxaan dhihi lahay billaahi calaykum, ilmihiina ku aamina hooyadooda. haddaa kala tagtiin, calafkiina dhammaado, bikaas kala tegitaan nabigiis rabbinallahi uu ku imaadaa. waa kala tagteen, dhib ma leh, waa la kala tegi jiray. ku aamin hooyadiisi. maxaa hooyadiis uga aamin laadaanay? hooyada cunuga ayagaa kaaga aqoon badan, iidaa kaaga tarbiya fiican marka la fiiriyo. laakiin ma ahan inaa hooyadii ka qaadid meel kale aa geysid.